xukuumadda Kenya waxa ay amartay in si degdeg ah loo xayiro lacagaha iyo hantida kale ee 9 ruux oo Kenyaati ah kuwaasoo lagu eedeeyay in ay maalgeliyaan al-shabaabka Soomaaliya. xogayaha golaha wasiirada Fred Matiang'i ayaa bayaan ku sheegay in dadka kale ah Xaliimo Cali, Waliid Zayn, Sheekh Booru, Maxamed Cali, Nusayba Xaaji, Cabdimajiid Xasan, Maxamed Cali Cabdi, Mukhtaar Cali iyo Miro Cabdulaahi Cilmi uu boolisku bishii Maaj su'aalo weydiiyey. Matiang'i waxa uu bayaanka ku yiri waxaan amray in la xayiro lacagaha iyo hantida maguurtada ah ee shakhsiyaadkan iyo hay-adahan. Waxa uu intaasi raaciyay in dadka la tuhunsan yahay ay isugu jiraan rag iyo dumar ganacsato oo degan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay Soomaali badan ku nool yihiin. Qaar kalena waxa ay ka shaqeeyaan buu yiri magaalooyinka Mombasa iyo Mandera. dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira 2 ruux oo sidoo kale la sheegay inay ku xiran yihiin shabakad maaliyadeed oo taageerta ururka ISIS. Mareykanka ayaa horay sanadihii 2018 iyo 2019 xayiraad ugu soo rogay Xaliimo Cali iyo Waliid Axmed Zayn. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa xilligaas Zayn ku eedeysay in uu ISIS u dhidbay shabakad maalgelineed oo xasaasi ah oo ku baahsan Yurub, Bariga Dhexe, labada Ameerika iyo Bariga Afrika. booliska ayaa sheegay in eedeysanayaashan 9 ah ay maamulaan adeega lacagaha telefoonka lagu xawilo ee M-Pesa. Matiang'i waxa uu xusay in 9 ruux loo aqoonsaday in ay udub dhaxaad u yihiin maalgelinta al-shabaab oo howlgallo ay kumanaan ku dhinteen, hantina ay ku burburtay ka fuliyay Kenya iyo Soomaaliya. magacyada dadkan ayaa la baahiyay iyadoo ay la socdaan kaararkooda aqoonsiga iyo baasabooro. xogayaha golaha wasiirada Kenya waxa uu sheegay in ay lama huraan tahay in argagixisada laga hor istaago wadooyinka ay dadka halista ku geliyaan iyaga oo la ceejinayo shabakadaha hawsha u fududeeya. waxa uu yiri innaga oo ka ambaqaadayna istiraatiijiyadeena la xiriirta la dagaalanka argagixisada, waxaan sii wadaynaa carqaladda aanu ku hayno falalka argagixiso innaga oo diiradda saarayna maxkamadaynta kuwa ku lugta leh falalkan guracan iyo kuwa maalgeliya si la jaanqaadi karta xeerarkeena wadaniga ah iyo waajibaadka dawliga ah ee na saaran. waxa uu xusay in xukuumaddiisa oo adeegsanaysa awoodda qaanuunka aanay ka labalabaynaynin inay jilbaha dhulka ugu dhufato cid walba oo isku hawsha in ay dhibaato gaarsiiso dadkiisa. bayaanka uu soo saaray Matiang'i waxa uu ku yiri cadowgu waxa uu isku dayayaa inuu si tartiib ah xubno ugu dhex beerto rayidka si uu u meelmariyo ajandihiisa isagoo adeegsanaya askarayn iyo argagixin. boolisku waxa uu sheegayaa in kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida ay gobolka ku leedahay shabakado maaliyadeed oo sal adag leh si ay u maareeyaan falalkooda ku baahsan min Soomaaliya ilaa gobolka Bariga Afrika. arrintan ayaa timid kadib howlgal ballaaran oo ay ciidamadu ka fuliyeen magaalada Mombasa iyo waqooyiga Kenya oo lagu soo qabqabtay ku dhawaad 10 ruux oo la tuhunsan yahay, kuwaasoo markii su'aalo la weydiiyey kadib la sii daayay. Kenya waxa ay bartilmaameed u ahayd xarakada al-shabaab tan iyo markii xukuumadda dalkaasi ay ciidamo u dirtay Soomaaliya. dhageystayaal waxaanu isku daynay inaanu dadka ay dowladda Kenya magacyadooda shaacisay la xiriirno si ay eedaha loo jeediyay uga jawaabaan, laakiin weli noomaanay suuroobin.